السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان صاحبة الصوماليين meel kasta oo joogtaan si kasta oo daawaysaan warsoo dhawaada jidka aniga oo iska maraya ayaa waxa ugu soo dhacday maanta muuqaal aan daawaday oo xasan sheekhiisa bal inaan hal iyo labo ka iraahdo odayga maanta uu hadlay meel shirka garsoorka miyaa maaqaan waxba uu meel ka furayo kulli shirarkiisa iyo wixii anaga nooga qiimeysnay meesha ayuu marka hadal ka jeediyay hadalkaas marka muhiimadiisu wuxuu ahaa warnimayahu wixii muxuu ahaaytay aan idiha ay qabana macnaha hadalku wuxuu ahaa tagtiiska daa ee timaada ka qabo wuxuu ku dul raftay marka hadda ka hor saasuu yiri wada ka hor kale ka dhacay waxaas ku mashquulina warkiisu wuxuu u akaa nin ka xun hadallada iskhilaafsan ee iyagu isbaabi'inaya ee miidiyaha ugu jira bulshaduna adeegsanayso حسنا وحال الله يعني نبا بين لو أهان جري نكاسي مركا نمن تلكي سأيو ماليه الدنبكيري ورميه أول باس وصعد أول نكاسي اللي يجري روح وركيه بين النجد داي وقال قشة وركو تصير وقال قشة وكاسي ورطلع بين وانشيك جري لكن ما قال قلن شيني ما أنت أون آمنة روح علي إنك وحباك عصوه بلهرت ما يشال السوق وأركا كشة جوال تو وحال أركي فردولي سو صعد وعوي مركا حسنوا مساجد كوات كهذا الشيء مدحتوية وات كهذا الشيء قبر من يشيلوا جدا بوات كهذا الشيء على كل حال وعوي مركا ما لين كاستشلا واحد الواحد كدورات شكتا ومدى الصومالية قاب يكوجو آمين كرته أنا وما جراني صوته قفك هدي مر بالشدو كآمن بحضاء وأدكتهاي إن دب لاقى نادعيو اللي يرادو ما أنتهم بوشيجي هذا لا شيء يتكوب اللابنا ما أنتنا هذا الله هذا ميديا كجرا إيه إسخلاف سن هدي قبر فود لي أو صوماليات أو أريتشر طبعا شر ميجا كنول أو سيد إلهي وأبوري كنول أو محو هايتوي عن سكول تيجين بس القرآن اللي جين الدنيا أنا عن صومر نون إكسبيرينس اللي هو بتمن جري دقنا عن جرين ومحو هايتوي عن مال لك وربنا يعني وحاول وحنا ما يبرد ضلمر معها قفوينا معها أو وحياة كل يحكوا جميسة ما جرنيش جمال النوع عاصة صوالوي كوبان تاي ميجا فوق وحتى تولين كقصي فوق قبلها أريك كجرو حين تعرق لودي وفلوي كا تمن جري كا هذه مقالة هذا الله تصح اللي يرى مانداي عاشوي لوديي علاموي مرعى دونتوغير نين كان سو كل ياهي حيلدا نين كان اما وا بين لو اما وا ووالين انت سو فهم كرتا حد اوغو عقلك فتربا هاي هيستا سياسه نتقان aqoon kala male li aqoontu aqliga dhista dalmarnimada iyo adduunka inaad waxyaabo kala duwan aragto aqliga dhista qofku inuu muddo badan joogay aqliga dhista intaba iyadu way ka maran tahay laakiin aqliga fitrada ahay ilaahay siiyay haysataa hadii video iskaaga eegto oo isbarbar dhigto waxay leedahay ninkan ama waa waalan yahay ama waxa way waa been lug marka horta xasanow waxa way xagga trustiga bulshada halkaas aad ka maraysa waxa tiri wixii la soo dhaafay lagu mashquulina warkaa u badnaa mustaqbalkan ayaa laga cabsan qaar baa waxay leeyihiin biri ama saayil biri hada yani iga diida camalno hadaan biri wax oo adinka waxaad ka baqaysaan aan la ibaado iga diida inaan ka diidayno wacada taas fariiqay kaaga baahan inaan ka diidayno hada tusaalaan waxyaabaha maskaxdaada inay ka gooxaan amisana la tahay inaan ka diidayno adigu noo sheegmayso inaga maarta garanataas laakiin tii la soo dhaafay hadaan dib ugu laabto adduunyadu madaxweyne waa 3 maalmood maalin afraadna ma jirto waa shalay oo la soo dhaafay maanta oo la joogo iyo berri oo soo socota waxa weeye marka haddii aan shalay laga warqabin berri meesha loo socdo lama garta liiga waxa kale oo dilishanayna adiga laftirkaaga 2017 xilligaad masrax ahay oo kursigan aad ka dagayso video aad duubtaa jira oo aad leedahay dadka is soo sharaxayo hadda jaakadaha u soo xiranay waxa ku jira kuwa maxaa shalay inta umadu aamintay ka cararay kuwa waxa ku jira wixii loo aaminay lagu aaminay maxaa ay tay gacanta ka bixi marka waxaad ku dhiga hadlaysay madaxweyne maxaa Abdullahi Farmaajo mar ra'iisul wasaare soo noqday iyo Shariif Sheekh Axmed oo isaguna mar madaxweyne soo noqday musharaxiin labadaba aha marka waxaad kelmad
aad adeegsataa jirto ahaa war dadka jaakadaha iyo suudadka idiin soo xiranaya khalfiyaadkooda eega maxaa taariikhoy leeyihin khalfiyaadkooda laftigaana adeegsatay khalfiyaadkooda eega maxaa taariikhoy leeyihin maantana waxaad leedahay shalay wixii khaldamay iyo shalay wixii aan dhahnay iyo anagu de shalay ma saxi karno ka socda horay u socday indhahan qabataan darbigaas aan dardarno waxa weeye marka ma soconaysa madaxweynow shalay baanu eegaynaa maanta ayaanu ku jimaynaynaa birina waan ku saadaalinaynaa meesha aad aadi karto waxa weeye marka ummadda wax kugu haray ma jiraan wax lagugu aamini karana ma jiraan bulshada Soomaaliyeedna boqolkiiba 99 maanta xasan way garanaysaa waxa weeye marka naseexadeedu waxay tahay aniga ummaddan inaad martaba soo hor istaagin hadal aad dhiheedo ku dhiman ma jiro been iyo run iyo waxa jeey karto dhan sheegtay sanad iyo bilaa ku haray sanadka iyo bilahaas xilkaaga iska dhamayso cidna kuguma haysato laakiin xasanow cid ku aamini karto dambe ma jirto qof dambe oo ku aamini karto aad ka dhaadhicin karto muxuu ahayd xasan cusub baan noqonayaa ma jirto adiga ayaana halkaas isdhigay oo waxa weeye yadribu bacduka bi bacdin adiga yaa laba qof oo feer iskala daalay adiga baa iskaraacay waxa weeye marka ummadda Soomaaliyeed insha Allah taala kulli dadku ka cabanaya kamid ahay uu leeyahay war waxa kan aad soo fagaysaan oo shalay waxaan idi iyo maxay daba dhigay waxa weeye insha Allah taala ummadda waan tusaynaa wixii shalay aad sheegtay iyo waxa maanta muxuu ahayd aad sameynayso si ay bulshadu u saadaalin karto biri waxa soo socda insha Allah taala waxaan marka naseexa kugu siinayaa ummaddan ha soo hor istaagin iska fariiso sanad bilaa ku haray meeshaad qaxwada isaga maartacab islaamaha cambuulada la cun kulleydii wixii aad muraadaysan karta muraadaysata maanta waxaan maqlayaa in filla baydhaba ay baax ku tahay waxaan maqlayaa wasaaradda arrimaha dibadda miyaa maqal qayb dambe wasaaradda qorsheynta wasaarada uu dhul dambe wasaaradu la tayda inaad cagta marinaysi gaashaandhigiiba iiba waxa weeye intii hartay ayaad muxuu ahayd rabtaa inaad hore u sii sahayatee waxa weeye ummadda ha soo hor istaagin waxbana ha u sheegin qof ku dhageysanaysa ma jirto because waxa weeye defoodleydaas miyiga joogtaanba maanta muxuu ahayd ku aamini karin oo haddii waxaad shala sheegtay waxaad maanta sheegaysa la isma bardhigo iyadaa waxay ka soo dhex saari kartaa inaad tahay nin muxuu ahayd aan la aamini karin marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay insha Allah taala aan ducaysano oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka barino midkaas mid dhaaf Soomaalidu waxa la yiraahdaa marka mid joogo xoogaa dhib badan oo qaab daran waxay dhahay Ilaahu kana dhaafay laakiin ma yiraahdaan Ilaahu mid ka qayb badan loogu bedel maanta waxaynu leenahay Ilaahu xasan mid ka qayb badan loogu bedel isagana na dhaaf isagoon dhib kale noo sii celin meelna loo kaga celiyo maba jirto korkeena dhan waa dhibaan marka meelna loo kaga celiyo maba jirtee asagana Allah na dhaafiyo isagoo nabad iyo anagoo nabada mid ka wanaagsan oo ka khayr badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala noogu bedelo هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.